Dhawaada saaxiibayaal waxaan eegi doonaa wararkii suuqa ee ugu dambeeyay Manchester United oo dalab u gudbisay Carlo Ancelotti waxa kale oo ay xiiseynaysaa flopkii hore ee Chelsea iyo waliba Thomas Muller Barcelona oo laga soo doontay laacib lafdhabar ah waxaan ka marnayn kulamada caawa Champions la ciyaarayo gurubyada aan xataa aan la kala bixin ee wali la isku murgan yahay haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato Fadlan Rukumo oo Kamaleel Conference aad u noqoto dadka ugu horeeya ee warbixinteeda ay soo gaadho mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal haddii ku bilowno waxaa lagu soo waramayaa saacadii ugu dambeeyay ee wargeysadu ay qorayaan in Manchester United ay dalab u gudbisay Carlo Ancelotti wararkaasi ayaa lagu soo waramayaa in Manchester United ay dalab u gudbisay Carlo Ancelotti dalabkaasi uu miiska u saaran yahay iyadoo lagu soo waramayo in kooxda Real Madrid ay wali ay go'aan ka qaadanayso in Carlo Ancelotti ay ka seexdo iyo waliba inay fasaxdo tababarahani wararkani ayaa saacadii ugu dambeeyay soo baxaya in United laacib tababarahani ay u gudbisay dalab ay doonayso inay ku bedesho tababarada hadda ee Ten Hag wararkaasi ayaa la soo dusinaya saacadii ugu dambeeyay sidoo kale waxaa soo baxay wararka sheegaya in Manchester United ay runtii xiiseynayso oo lagu soo waramayo inay doonayso inay qaato horyaalka Premier League ay ku soo celiso flopkii hore ee kooxda Chelsea Timo Werner hadda RB Leipzig jooga ayaa lagu soo waramayaa in Manchester United ay doonayso safkeeda weerarka ay u qaadato oo ay xaga soo socda ay ku xoojiso warkaas soo baxay waxaan lagu soo waramayaa in xantii hore ee soo baxay in Manchester United ay doonayso in la wareegto Thomas Muller xantii la xirtay in qaadayso laacibkani ay hadda sii xoogeysanayso oo wargeyso waaweyn oo Daily Mail ay kamid yahay hadda qorayaan in Manchester United ay laacibka Thomas Muller ee kooxda Bayern ay doonayso inay qaadato hadda waxa leeyahay Bayern ma fasixi doonta laacibkeedan inkastoo wararka soo baxayaan in la xirnayo Manchester United xidigani waxa kale oo runtii in aad ay ula yaabeen oo ay la naxsan yihiin taageerayaasha jamaahiirta kooxda Barcelona saacadii ugu dambeeyay iyadana waxay sidoo kale wargeysada ay qoreen in kooxda Bayern ay doonayso in Araujo ay ka qaadato kooxda Barcelona waa daayirkii muddooyinkii ugu dambeeyay qaab ciyaareedkiisa ay jamaahiirta taageerayaasha Barcelona ay la dhacsanaayeen qaab daaficiiska xoogiisa waan laacibka kaliya ee loo hayo inuu maqooniyo Vinicius oo tan iyo inta aan laacibkana soo bixin maara ay u lahayd Barcelona ninkani ayaa ka maareeyay koox kastaana waxay leedahay oo Vinicius uu ka hor imanayo Araujo ay keena wataasi waxaa lagu soo waramay in Bayern ay waliba ay u sheegtay inay doonayso laacibkaasi inay ka qaadato warkaasi ay sheegayaan in kooxdaasi Bundesliga ay ka dhisan ay ku doonayso inay ku qaadato Ronaldo Araujo sidoo kale Barcelona iyaduna bedelkeeda Bayern laacib bay ka rabtaa waliba isla January ay doonayso in khadkeeda dhexe mushkilada ka haysata waliba in positionkii uu ka baxay Sergio Busquets oo wali aan xal u helin kooxda Barcelona ay ku doonayso inay ku buuxiso waa laacib ka tirsan kooxda Bayern waa Joao Kimmich ay ku doonayso inay waliba xitaa la suuqadii ugu dambeeyay la xirinayay tamartun baa ciishay iyo lacag laanta Barcelona ma ahay muddo dheerba laacibkani waa doonayso waxayna ka dhigatay bartilmaameedkiiga ugu muhiimsan ee suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan Xavi mar hore ayuu isaguna la hadlay oo ogeysay kooxda Bayern waxaana furan baa leeyahay inuu laacibkaasi uu dhaqaaqi karo oo ay ku taageerayaan maamulka kooxda Barcelona laacibkaasi ay laftigiisa doonayaa in safkiisa uu ku xoojiyo markii warkaasi ay maqleen iyaguna laacibkaasi muhiimka ah ee waliba daa'irka 15 sano soo socda lagu xamaalan karayo ee daafaca cajiibka ah ay ka rabtaa Barcelona Kimmich ay ka rabtaa inay ku buuxiso haddii waxa la Ronaldo Araujo oo jamaahiirta ay ka naxsiin Barcelona fasixi doonta qiimo intee leeg ayaa runtii lagu helayaa waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in ay diyaarinayaan dalab dhan 100 milyan ah kooxda Chelsea oo ay ku doonayso Osimhen waxa leeyahay haddii mushkilada haysata kooxda Chelsea meelaha hoose ay ku jirto maxamili doonaa oo lacagtaasi iska qaadan doona 100 milyan ay doonaysaa in Napoli ay ka soo furto isla waliba January ay ka soo furto laacibkan Osimhen runtii Osimhen ma yeeli doono leeyahay inkastoo Chelsea ay runtii ay la daala dhacayso runtii ciyaartoydeeda kulmadii ugu dambeeyay runtii la garaacay oo meelaha dambe ay ku jirto ma yeeli doono leeyahay kaalmaha dambe oo la galo oo lacagtaasi ma qaadan doona Osimhen Juventus ayadana waxa leeyahay waxay dareynaysaa in ciyaaryahan khad dhexe ay qaato ilowba ciyaartoy khad dhexe warabta ayaa leeyahay kooxda Juventus oo horyaalka Talyaaniga
ay runtii iyo waliba ay doonayso inay khadkii dhexe kusii xoojisato waxaana miiska u saaran 3 ciyaartoy oo leeyahay midkood ay bay qaadan doontaa isla suuqa January saddexdaba qaarkood waa u fududahay qaarna waxa uu leeyahay runtii inay helaan way ku adkaan doontaa haddaba 3 ciyaartoy ayaa kala Calvin Phillips oo kooxda Manchester City Thomas Partey oo Arsenal iyo waliba Højbjerg oo runtii kooxda Tottenham saddexdaasi laacib ee khadka dhexe ee runtii cajiibka midooyinkii ugu dambeeyay wacdareynay ayaa runtii ay doonaysaa midkood inay qaato kooxda Juventus ay khadkeeda dhexe ay ku xoojiso haddaba kulmo waaweyn ayaa caawa jira horyaalada ee Championka guriga waxaa jira runtii la isku margan yahay oo aan la kala bixin oo runtii adkaan doonta ilaa kulanka ugu dambeeyay isla aad doona ay adkaan doonta in hal koox ay baxdo runtii kulmo waaweyn baa caawa jira Manchester City waa ciyaar doonta oo Leipzig la leh Barcelona oo Porto oo group adaga oo kubad cadab caawa badiya oo runtii fursad haysto inuu baxo soo gal adaba groupka indhaha lagu hayo ee aadka loo indheynaya waa groupka ay ku jiraan PSG Newcastle Milan iyo Dortmund waxaa wada ciyaar doona PSG iyo waliba Newcastle iyo Milan iyo Dortmund ayaa wada ciyaar doona Borussia Dortmund haddaba PSG iyo Newcastle kulankoodaasi warta ma kala bixin afartaasiba waan isku wada xigaan 7-6-5-4 ay kaleeyeen Dortmund baa sareyso oo 7 leh PSG 6 laba ku xigta AC Milan 5 leh iyo Newcastle 4 leh lama kala bixin oo way isku murgan yihiin hadda waxa leeyahay hadii caawayo badiso Borussia Dortmund ay adkaato oo Newcastle ay badiso Borussia Dortmund saasi ku bixi doonta 7 leedahay waxay yeelan doontaa 10 dhibcood runtii waa adkaan doontaa labada kooxood ee ku soo xiga in hal koox amba ha noqoto Newcastle ama noqoto PSG in midkood ay fursad u heli doonaan soo baxaan ayaduna sidaas ay ku heli doonto in ay waliba 10 dhibcood ay si xaqiisto kulankan oo saddexda kooxood dambana ayuu soo tartamaan laftigooda haddaba isla Milan iyo waliba kooxdani Dortmund ayaa iyaguna caawiyaguna foodistari doona kulankaas iyaguna waa kun adag Milan Dortmund foodistari doonaan lama kala bixin afartaasi kooxood mid walba waa dagaalamaysa si ay u hesho fursadeeda inay 16 ay ugu gudubto way dagaalami doonaan waana groupka indhaha aadka lagu wada hay hadii aan eegno groupka laftigiisa Barcelona iyo waliba Porto ay caawada ciyaar doona min 9 bil leeyihiin Shakhtar ku soo xigta 6 bil leeday kooda badiya caaw fursad buu helay isagoo saas ku baxay 12 bil uu baxaya haddaba Shakhtar iyo Royal Antwerp baa wada ciyaaraya hadii Shakhtar boos 9 bil la iman doonta Porto ama Barcelona tooda laga badiyo marka la timaado kulan kale ku xiga ayaa iyaduna runtii way ku adkaan doontaa labadaas midun baa bixi doona waxa isla aadi doonaan wareeg ilxaad ugu dambeeya kooxaha baxatla aan weeriyeen Bayern ayaa xaqiijistay runtii waxay laftigeeda xaqiijistay Real Sociedad Inter oo koobaadii labaad kala baxay oo kooxaha ku soo xiga inkastoo min 12 laakiin iyagu waxa xaqiijisteen xilli hore waxa ku jirta Manchester City oo idina baxday 12 leh groupkan kala wali lagu ma kala bixin Real Madrid laftigeeda waa baxday lagu ma kala bixin waxayna caaw indhahan ku hayn doona groupka Dortmund PSG Milan iyo Newcastle 7-6-5-4 wala ilaa groupka u dambeeya waa lagu kala bixin maayo group indhaha lagu hayn doono ayuu muuqata runtii waxaan caadayn ba ka dhacay Dortmund ayaa ugu sareysaba halka la isla groupkan saddexda kala soo bixi doono Dortmund hari doonta waxay buu eegtay inay fursad haysto in Borussia inay ka soo dhaxboodi doonto saddexdaas kooxood ee waaweyn ee Milan iyo Newcastle iyo PSG inkastoo khibradda Newcastle ay yartahay oo muddo dheer kadib ay sanadkan ka soo qayb gashay hadda laftiga fursad haystay wali lagama fogaan waa 6 dhibcood waa kulankan caaway sidii kulankii hore PSG ay u garaacdo kaliya runtii waxay noqon doontaa in Newcastle fursad weyn laftigeedu waa hesho kulamadaas ayaa caaw la ciyaari doona wararkeena ciyaaru waa naga inta saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena kale wassalaamu calaykum